guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa mar kale soo saaray jadwalka doorashada madaxweynaha iyadoo waqtigii loogu talagalay ay dib uga dhacday kulan ay maanta magaalada Baydhabo ku yeesheen guddiga doorashada madaxweynaha ayaa waxa ay soo saareen jadwal cusub oo ah habraaca doorashada. guddiga wuxuu dib u eegis toosin iyo ansixin ku sameeyay oo baahinaya shuruudaha laga doonayo musharaxa habraaca iyo jadwalka loogu talagalay in lagu hogaamiyo doorashada madaxweynaha iyo oo mudaysan sida hoos ku qoran. 24 November isxog wareysi guddiga iyo xilwareejinta guddiga hore 25 ilaa 26 diiwaangelinta musharaxiinta 27 ilaa 29 tababarka guddiga doorashada isxog wareysi 1 December isxog wareysi iyo qiimeyn golaha guddiga 2 December hadal jeedin 2 December ilaa 3 Decemberna waa hadal jeedin 4 Decemberna qiimeynta howlka iyo goobaha doorashada 5 December maalinta doorashada goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. guddiga ayaa waxa ay sheegeen in 26 bishan oo ku beegan maalinta Sabtida ah ay bilaaban doonto diiwaangelinta musharaxiinta isla markaana ay ku eg tahay 27 bishan. sidoo kale 27 bishan ayaa guddiga waxaa la siin doonaa tababar ku saabsan doorashada halka 1 bisha soo socota ee December ay guddiga yeelan doonaan kulan isxog wareysi ah. 2 ilaa 3 December ayaa waxaa musharaxiinta fursad loo siin doonaa in xildhibaanada ay ka horjeediyaan khudbadda ku aadan waxyaabaha ay mid waliba qaban doono haddii la doorto. gabagabadii 5 bisha December ayaa loo qorsheeyay in dhacdo doorashada madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya. doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ayaa ah mid xasaasi ah taasoo aad ka dareemayso inuu jiro muran ku saabsan waqtiga rasmiga ah oo ay dhacayso iyo qaabka loo wajahayo, waxaana wali jira in dowladda federaalka lagu eedeynayo inay faragelin ku hayso doorashada. halka aad warbixintaasi kala socoteen waa channelka Gallery Media.